kulanti waxaan u wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaanba soo dhawaada ayaan idin leeyahay warbaahinta kala duwan ee deegaanka canfarta ayaa bilowday olole ballaadhan oo ay ku soo bandhigayaan sida ay sheegeen guluf dagaal oo haatan ay isu diyaarinayaan maamulka deegaanka canfarta kuwaasi oo sida ay sheegeen uu qorshuhu yahay kadib markii laga soo jeesaday dhinaca iyo deegaanka Tigreega jabhaddii ka soo duushay ee TPLF in haatan ay bulshada canfartu dagaal toos ah ku soo qaado gudaha deegaanka Soomaalida warbaahinta kala duwan ee deegaanka canfarta ayaa waxa ay soo bandhigayaan gaadiid kala duwan iyo weliba taangiyo iyo sidoo kale ciidamo aad u tababaran oo qaar badan oo ka mid ah haatan tababar loo soo xidhay halka qaar kalena ay weli tababar u socdaan waxa ay sheegeen in ay ku guulaysteen dagaallo dhowra oo ay la galeen kooxda TPLF ugu dambaynna waxa ay ku doodayaan amaba ay sheegayaan in haatan wixii ka dambeeya ay u soo jeesanayaan dhinaca Soomaalida maadaama ay canfartii aan idhaahdo ay Tigreegi ka adkaadeen oo ay kaga guulaysteen goobihii dagaalka muuqaallo iyo weliba waxaa jira codad kala duwan oo ay ku muujinayaan sida haatan ay isugu diyaarinayaan in ay tirtiraan waa sida iyagu ay ku doodayaan argagixisada geeska Afrika amaba waxa ay ugu yeedheen argagixisada ciisaha Soomaalida ee dhibka ku wada guud ahaanba geeska Afrika sida iyagu ay ku doodayaan waxa ay sheegayaan amaba ay soo bandhigayaan iyaga oo taangiyo iyo gawaari ay sheegeen inay ka furteen kooxda TPLF ku dabaaldegaya kuna dhawaaqaya waxa xigi doonta cundufu iyo guud ahaanba erer waa sida iyagu ay ku doodayaan oo ah bartamaha gobolka City ee deegaanka Soomaalida waxa canfartu ay sheeganayaan amaba sidoo kale ay soo bandhigayaan in shacabka Soomaaliyeed ama guud ahaanba deegaanka Soomaalidu uu yahay argagixiso iyaga oo markaasi si gaara farta ugu fiiqaya beelweynta Soomaaliyeed ee ciise oo ay ku doodayaan amaba ay sheegayaan inay tahay beel argagixiso ah oo ay tahay in laga sifeeyo guud ahaanba geeska Afrika waxa sidoo kale ay xayiraad ama xaqiraad ku muujinayaan Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya oo ay leeyihiin yani dhul lagu sheego Soomaaliya oo kale bal hadda qoraalka yarka ayaa waxa uu muujinayaa amaba ay ku leeyihiin kadib markii aan tirtiray ama kadib marka aan tirtiro kooxda TPLF ee Tigreega aan Ethiopia ka tirtirno ciidamada canfar waxay isu diyaarinayaan sidii ay dhulka Soomaalida oo dhan uga tirtiri lahaayeen hanjabaadaha argagixisada ciisaha Soomaalida yani waxaad moodaa inaysan waxba cadaysanaynin waa wargeys ka mid ah wargeysyada dawladda deegaanka canfarta weeye oo laaqo la yiraahdo wax noocaas iyaga oo hadalkoodii sii wata waa af Ingiriisi ayaa waxay ku leeyihiin argagixisada Soomaaliya uma rogi doonto Ethiopia iyo geeska Afrika intiisa kale amni darro joogta ah yani kama dhigi doonaan iyo meel uu dhiigu qulqulo amaba dhiig baxda sida ay ka sameeyaan ama ay ka sameeyeen dalka lagu magacaabo ama loogu yeero Soomaaliya bay ku leeyihiin waxaa jirta baahi degdeg ah in si gaar ah ama sida dhaqsaha ah looga tirtiro maleeshiyada ciisaha khatarta ay ku hayso nabadda iyo wada noolaanshaha Ethiopia iyo xasiloonideeda waa kooxda waa maamulka deegaanka canfarta warbaahintooda oo iyagu ku doodaya amaba sheegaya in ay tahay waajib in la tirtiro mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan
geyiga Soomaali galbeed amaba deegaanka Soomaalida waxa soo bandhigayaana waa warbaahinta dawladda deegaanka Canfarta waa muuqaal ayuu weeyaan waxa yacni sidan lagu qoray ciidamo tababar loo soo xidhay ayaana maaragtay ku jira muuqaalka waa ka soo tegay laakiin sawir ahaan ayaa aan idin tusayaa waa sawiradan maaragtay muuqaalka ku hoos jira waa dhalinyaro Canfara oo loo tababaray ciidamada muuqaalada kala duwan lagu baahinayo warbaahinta deegaanka Canfarta dhammaantoodba waxa ay muujinayaan hanjabaado iyo cagajugleyn iyo in sida ugu dhaqsaha badan ay u weerari doonaan amaba ay u geli doonaan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City oo ay sheegeen kala badh ama intiisa badanba in ay Canfari leedahay oo uu yahay dhul Canfareed hanjabaadahan iyo sawaxankan iyo faanka iyo dhaarta ka soo yeedhaysa bulshada Canfarta maamulkeeda ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maalmihii la soo dhaafay dagaal dhex marayay iyaga iyo ciidamada TPLF iyo waliba ciidanka federaalka iyo ciidamada deegaanka oromada ka socda ee ka barbar dagaalamaya ciidanka dawladda federaalka ay sida ay sheegeen ay guula ka gaadheen oo ay la wareegeen qaar ka mid ah degmooyinka ama magaalooyinkii ay maamulka kooxda TPLF ka talinayay amaba uu maamulka Tigreegu gacanta ku hayay ee ka tirsanaa deegaanka Canfarta say dooniba ha noqoto waxa hadda cod dheer ay ku sheegayaan oo meel walba ay la taagan yihiin in taangiyada iyo hubkii ay ka qabsadeen kooxda TPLF ay ku weerarayaan amaba ay ku geli doonaan galbeedka gobolka City taasi oo ay ku doodayaan in kooxaha argagixisada ee ciisaha ay tahay in ay ka tirtiraan geeska Afrika waa sida iyagu ay ku doodayaan oo mar walba ay yacni ku faanayaan in ay tirtirayaan beesha Soomaaliyeed ee ciise oo ay ku sheegayaan inay tahay beel argagixiso ah oo dhibaato ku haysa guud ahaanba geeska Afrika nabadna looga joogi la'yahay duulaanka ama gulufka koobaadna waa midka looga saarayo ayay yidhaahdeen degmada ama magaalada Cundhufu gulufka koobaad maxaan ku dhahayeeto aan qaadayno waa deegaanka Canfarta waa deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka waxay ku leeyihiin iyagu magac bay u sheeganayaan galbeedka ama gobolka City magaalada Cundhufu erer iyo magaalooyin kale muhiimadda Canfarta waxay tahay annaga iyo Diridhabe annagaas kale camal oo annaga iyo Oromo ayaa Diridhabe deris ku ah halka dhulka inta u dhaxaysana waa dhul Canfareed oo ay tahay in aan gacanta ku soo dhigno muhiimadda dadaalkooda iyo warkooda iyo waxa ay sheegayaan ee ay isla waalayaan waa intaas oo ah inay gobolka City oo dhanba hadday helayaan ay qaataan waxa ay ku xisaabtamayaanna ma aha cudud iyagu ay leeyihiin iyo awood iyaga u gaara ama maaragtay hub iyo qalab iyo ciidan iyagu ay haystaan ma aha waa qowmiyad yar oo Soomaalida walaalo ah sabool ah laba booladood aan isku furanin maxaan ku dhahay Axmaaradu ay gargaar siinayso lagu gargaarayo sidii Soomaalida ay u dhibaateyn lahaayeen ay u gargaarayaan dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Axmaarada waxa kale oo xusid mudan in wafdi ballaaran oo ka socda deegaanka Axmaarada uu maalinnimadii shalay ahayd uu yimid xalay uu u hoyday ay si cad maaragtay ugu hambalyeeyeen ku yidhaahdeen waa ku mahadsantihiin sidaad argagixisadii Jundaaga bari aad isaga difaacdeen oo aad uga adkaateen waxay u keeneen dhowr boqol adigu 300 milyan oo lacagta Itoobiya ah waa wax adigu dhowr boqol oo kun oo dollar qiyaastayda adigu 100,000 meelahaas 200,000 inay tahay baan filayaa adigu 300 milyan oo lacagta Itoobiya ah way si maaragtay socotaay ayay u keeneen waxa ay yiraahdeen intana waa hadiyad iyo gargaar iyo dhibaatadii Soomaalidu ay idin geysatay ayaan idinka kaalmaynaynaa oo aan idinka maaragtay caawinaynaa waxayna u ballan qaadeen mar kasta oo Soomaalida waxyeello ay u geystaanba inay garab istaagayaan oo Soomaalidu ay tahay argagixiso
jundaaga bari ee Ethiopia la yiraahdo yani Soomaalidu ma aha Ethiopian laakiin waa argagixiso dhib ku haysa Ethiopianka iyo Ethiopianimada iyo dhulka Ethiopia marka waxa lagu maartay guubaabinayo ee lagu maartay tirsiisinayo waa deegaanka Soomaalida in ay la dagaalamaan canfar iyo Soomaaliya isku mashquusho isku jabaan aakhirkana ay canfartii maxaan ku meesha ka baxdo axmaarana ay soo gasho canfaru inay meesha Soomaali ka saarto haday suura gasho iyadoo la taageerayo kadibna in la yiraahdo annaga dhaqaalahanagi iyo deeftii iyo wixii aan idinku caawinay ayaad Soomaali kaga adkaateen midinka aqlikiina iyo awoodtiina iyo maskaxtiina iyo muruqkiina iyo maalkiina kaga adkaaday Soomaali waa maya weey marka waa la is wada gaadaya qolay gaadaysa Soomaaliduna waxaan leeyahay waa soo jeedaa Soomaalidu waa soo jeedaa ma aha mid canfari gaadi karto laba taangi ama laba beebe oo laga furtay Tigreena ma aha wax Soomaali loogu caga juglan karo waa xaqiiq midda haddaad idinku Tigreena ka soo furateen keena idinkana dhalinyarada galbeedka city baa idinka furanaysa waa xaqiiq midda suuyada iyo taangiyada iyo beebeeyada Ethiopia ayaa ahaayeen kuwii la furanayay ee barqal la qaadanayay macdallaahi canfar oo maxaan ku yiraahdaa laga yaabo hadayna militariga Ethiopia ka qaadanaysa dhihin baabuur kalaan idinku bedelaynaa inkasta oo la soo saaray oo la yiri qof waliba wuxuu qabsaday isaga leh oo qolo waliba taangi hadal qabsatada leh dhul hadal qabsatada leh maxaan ku dhahayto waxa qabsato qof waliba adaale inkasta oo ay soo saareen maamulka axmaaradu Ethiopia oo dhanna ay u wada hoggaansamayso haddana waxaan leenahay hore u soo qaada soo badiyo kuwa kala Tigreega ka soo qaada waxa doontaan bakeena waa soo jeednaa taaka dhulka Soomaaliyeed kamid la qaadi mayo waa suuragal maamulku inuu idin dabco waa aqli gal in maaragtay to wax badan maamulka Soomaalidu ay maaragtaa ugu jilicsanaadaan oo ay ka cabsadaan laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaa leh awoodda kama dambaysta ah iyaga ayaa mar walba u taagnaanaya difaaca dhulkooda iyo deegaankooda Soomaalina waxaan leeyahay waad aragtaan oo maanta idin ma dhimana waxa warbaahintii deegaanka canfartu ay soo qorayso ee ay la taagan tahay ee ay ku doodayso in maxaan ku yiraahdaa ay ka soo jeesanayaan marka la tirtiro Tigreega in loo soo jeesanayo Soomaalida gaar ahaan beelweynta Ciise ninkii Ciise dila Soomaali oo dhan buu dilay muhiimadu waa inta qofkii Ciise waxyeela Soomaali oo dhan buu waxyeelay qofkii ka oohiya Soomaali oo dhan buu ka oohiyay kii dila Soomaali oo dhan buu dilay waa isku mid Soomaali waxa weeye wax la kala qaadaya haba yaraatee iyo qaab loo kala qaadaya ma ay jirto guriga gobonnimaan idin rajaynaya insha Allah ta'ala intaasi ayaana jeclahay akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo warbixintaasi kooban inaan ku soo afjaro hadiise aan ugu celiyo saaxiibada haatan lagu soo biiray warbaahinta kala duwan ee maamulka deegaanka canfarta ayaa baahinaya barnaamijyo iyo warar kala duwan soona bandhigaya ciidamo iyo waliba qalab military oo ay ku doodayaan in lagu weerarayo laguna baabi'inayo Soomaalida ku dhaqan galbeedka gobolka City oo ay ku tilmaameen argagixiso doonaysa in ay qas iyo lab iyo xasilooni darro ka samayso guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaan dhulka Ethiopia waa sida iyagu ay ku doodayaan waxa marka ay sheegeen in mar haddii laga adkaado kooxda TPLF dharbaaxada xigta ay noqon doonto gobolka City gaar ahaan degmooyinka Cadaytu Erer iyo bartamaha gobolka meesha lagu magacaabo City oo sida ay sheegayaan ay ku doodayaan iyagu in ay leeyihiin waa filaya inaad wada fahanteen meel kasta oo joogtaanba waxaan idinku dhaafayaa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo fi amaanillah